baanada sharafta leh ururada bulshada rayidka culamaa diinka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqtiga gaaban hore ayaa u galaya qodobka koowaad baaqa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku qoran tahay waxa ku qoran Soomaaliya waa jamhuuriyad federaali ah federaal ay ahayd lagu daray ma aqaan sababta loogu daray marka federaal waa federaali ma aha waxa ku qoran oo muslim ah lehna gobonnimo ku salaysan cadaalad iyo sareynta sharciga meeshaas waxa ku qoran muslim ah qodobka soo noqonaya jiro qodobka saddexaad faqradiisa labaad ayadana waxa ku qoran jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa dal muslim ah oo kamid ah ummadaha Carabta iyo Afrikaanka marka laba jeer waxay soo noqotay muslim islaamka asaasa muslimkana waa dadka diintaas maaragtay haysta ee ku dhagan waxaan qabaa marka in laga dhigo islaam loo celiyo oo la yiraahdo islaam sababtoo ah hadaad fiiriso quraanka markuu diin ka hadlaayo dhan wuxuu mar walba soo qaadanaa inna diina cinda Allahi al-islaam alla agtii diin waa islaam marka diin hadii laga hadlaayo waa islaam waxa kale oo ku jira quraanka oo man yabtaghi ghayra al-islaam diinan falan yuqbal minhu qofkii jeclaa diin aan diinta islaamka ahayn laga aqbali maayo marka diinba markuu quraanku ka hadlaayo wuxuu soo qaataa islaamka marka inaan anagana sidoo kale soo qaadano waxa kale oo fiiriyay dasaatiirta ay leeyihiin wadamada Carabeed iyo kuwa islaamka waxay leeyihiin dawla carabiya dawla islaamiya marka anaga waxaan rabnaa inaan dhahno dawladda federaalku waa dawlad islaama horeyna xildhibaan odawaaya sidaas uga dhawaajiyay hadaad fiiriso meel kastana sidaas ku qoran al-mamlakatu al-arabiyya as-sacuudiyya dawla carabiya sidaas ku qoran islaamiya oo diinuha al-islaam marka in islaamka loo celiyo oo meeshaas muslimka uusan ahayn ayaan aniga qabaa qodobadaasna la isku soo raro saddex qodob ka hadlaysa arimahaas qodobka labaad faqradiisa saddexaad ay guddigu soo kordhiyeen runtii waa uga mahad celinaya guddiga arrin aad muhiim u ah waaye in ay keenaan qodob reebaya cayda diinta islaamka iyo waxay yiraahdeen waxa reeban cayda diinta islaamka karaahiyadeeda iyo wax kasta oo wax u dhimaya xushmada arrimaha diinta islaamka waa sax laakiin waxay yiraahdeen qof kasta oo u gafa diinta islaamka waxa la tiigsanayaa xeerarka jamhuuriyadda hadii qof quraankii iyo diintii nabiga uu ku xadgudbo ma waxa la aadaya xeerarkii wadanka u yaallay koodisha binaal Soomaal waana xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aan leenahay oo 64 la qoray oo aan wax badan ka qoraynin marka meelo badan oo shariicada islaamku qoran tahay waa jirtaa oo gadaal ku qoran qodobka 12 uu kamid yahay sida darteed waxa in lagu qoraa waaragtay waxa la tiigsanayaa shariicada islaamka wax dhibaayo ma jiro maadaama dastuurkan laftiisa uu leeyahay maaragtay waxa saldhiga ama maaragtay uu yahay quraanka kariimka meesha qodobka saddexaad isna horay sidoo uu ahaa waxa ku jirtay cadaaladda bulshada hadda waa laga reebay markii hore wuxuu ahaa dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah quraanka kariimka iyo sunnada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan ilaalinayaa maqaasida iyo shariicada islaamka iyo cadaaladda bulshada waa laga reebay marka cadaaladda bulshada runtii cadaalad waa asaaska dawladnimada waliba waa mabaadi'da asaasiga in cadaalad dadku ay helaan siyaadada ka soo waa in cadaalad la helaa marka ma garan karo sababta looga reebayo cadaalad ma waxa loo doonana marka shabaab ma loo doonanaya micnaheedu waxa saas ay noqonaysaa ma waxay banaynaysaa in dadka macallimiinta iskuulada inta lagu dilo kadibna la yiraahdo dambiilayaasha waa baxsadeen cadaalad waa asaasi wadankaana wuxuu la baaba'san yahay cadaalad darro marka in meeshaas aan laga tagin ayaa soo jeedinaya qodobka ay soo qoreen qodobka afraad faqradiisa labaad guddigu waxay bedeleen meeshii xeer ahayd xeer kasta sharciga ku bedeleen waa fiican tahay laakiin qodobkii oo dhan ay bedeleen oo markii hore wuxuu ahaa sharci kasta ama tallaabo kasta oo maamulo ka soo horjeeda dastuurka maxkamadda dastuuriga ayaa awood u leh burinta sharcigaas ama tallaabadaas maamul si waafaqsan dastuurkan qodobka si qurxan u qoran oo dad sharci yaqaan ay qoreen oo markii hore laakiin hadda markaad fiiriso sida ay hadda u qoreen guddiga waa af Soomaali jajaban wuxuu leeyahay xeer kasta go'aan kasta ama tallaabo kasta oo maamuleed oo ka soo baxa xeer kasta waxaas maaragtay way loogu baahday waxaas kasta macnaha macquul ma aha Soomaaliga sidaas sax ma aha marka waxa fiican hadii tooda ay ku adkaysanayaan in kastadaas la isku soo guuriyo la yiraahdo xeer go'aan ama tallaabo kasta oo maamuleed oo ka soo baxa hay'adaha kala duwan ee dawladda wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan waxaana burintooda awood u leh maxkamadda dastuuriga marka af Soomaali sax ay noqonaysaa laakiin hebel kastadaas ma aqaan ani meel laga keenay qodobkan
shanaad runtii waa qodobka ka hadlaya afka rasmiga qodobkan runtii waa garan karaa sababta uu meesha ugu jiro waa garan karaa xasaasiyadda uu leeyahay waa fahamsanahay laakiin dad badan ra'yigooda ay ka hadleen ana aragtideeda waxaan jeclaan lahaa inaan leegu culaadin oo maaragtay la ii ogolaado waxaa ku qoran af Soomaaligu ma iyo maxaa tiri waa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya afka Carabiguna waa luqadda labaad maxaa loogu baahday in baraakid la geliyo oo lahjada la sheego meel ay ku jirto luqad maaragtay adduunka oo dhan hadii la soo helo hal dastuur oo wax baraakid la geliyo ma jirto luqadaha adduunka official language waa la yaqaanaa dalka luqadaas ah luqadaas labaad waa ama labadaas luqadood ah official ah dalkan Kenya noogu dhow waxa la leeyahay the official languages of the Republic of Kenya are Kiswahili and English waa Ingiriis iyo Swahili saasa la leeyahay laakiin kuyada oo 7,000 ay ku hadasho lagu darin meesha turkaanada waxa ku hadasho 3 milyan waliba xuduuduhu ku gudba Tanzania iyo dad Uganda ku yaala ku hadla meelna lagu ma qorin haba yaraatay kuma qorno amxaarada afka amxaariga wuxuu yahay Ethiopia oromada 30 milyan ah lagu ma darin meeshaas macnaha lagu ma qorin sabab loogu qoro ma jirtaba afka amxaari oromada wuxuu kamid yahay afarta maaragtay qaaradda Afrika ugu weyn Carabiga koow ah hawsaha oo Nigeria looga hadlo dhinacaas laba ah waxa saddex Swahiliga afar waxa soo galay oromada marka Soomaaliga lagu ma sheego waxa soo lama sheegayo marka sababta loogu soo qoray halkan waxa waaye waa kulli waa la iska garan karaa laakiin sida saxda ah waa in sidaas maaragtay loo qoro oo la yiraahdaa af Soomaaliga maaragtay waa afka rasmiga waa Soomaali af Carabiguna waa luqadda labaad حتى الدنيا فوق هذا تكتو تلياني wuxuu leeyahay Napolitan qol yiraahdo waxay leeyahay Sardinian Sicilian ay leeyihiin oo luqado gaar ah ku hadlo laakiin haba yaraatee lama sheego waxa leeyahay l'italiano la lingua ufficiale dello Stato Talyaani ay wuxuu luqad rasmiga wadankaas marka meel ay ku qoran tahay haba yaraatee ma jirto hadii waxaan ku hadlaayeen waa cilmi hadii jirto cid haysa dal adduunka kamida oo inta baraakid wax galiyay sida u qoray hadii jirtana hana la tuso war luqadda rasmiga marka la leeyahay waxa waaye waa luqadda looga hadlaayo sharciga baarlamaanka looga hadlo waa luqadda ay dadka maaragtay xaakimta ku dhaqmaan iskuulada lagu barto oo ay qasabtay iskuulada lagu dhigo jaamacadaha lagu dhigo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan hadii qareen hadda Soomaaliya meeshan oo afmayl lagu soo qoro ma ku qasban yahay dinka garsooraha maxkamadeeda jooga Boorama ama Boosaaso ama Burco ama Balcad jooga inuu yiraahdo maaragtay uu ku jawaab ilaan sida loo qoray waa sidaas marka waxaan isleeyahay arintaas maaragtay caadifad badan ku jirto siday tahay ha loo celiyo waxaan soo gudbayaa qodobka lixaad heesta qaranka dad badan ka hadlay oo xilbaan midnimo uu kamid ahaa runtii aadan la qaba sababtoo ah macna ku jiro qolaba calankeen marka la yiraahdo ilmeena marka dadka ajnabiga loo fasirayo ayaga ay arkaan heesaha wadamo kale ay leeyihiin markay arkaan oo kuwana loo fasirayo waxay leeyihiin qolaba calanka macnaha qolo walba calan ay leedahay keena saas waa bulug kadib waxay leeyihiin soo wat maxaa ku jiro macnaha duca malaha wax ay leedahay male dalkii maaragtay wax oo macna ku jiro marka أنا waxaan qabaa marka in akademiyada iyo cid laga commission gareeyo oo inta tartan furan la qabto oo sax ah af Soomaaligaas maaragtay dadka Soomaaliya loo bandhigo la isku soo ururiyo af Soomaaliya ama dad suugaanyahana oo hadal fiican oo wadanka u duceynaayo oo maaragtay dadka hanuuninaayo in la keeno oo sidaas maaragtay hadalka lagu bedelo laakiin qodob kale waxa ku jira oo qodobka shanaada oo isla qodobka lixaad faqradiisa waxay leedahay dawlad goboleedyadu waxay yeelan karaan calan iyo astaan u gaar ah balse ma yeelan karaan hees astaameed u gaar ah hees astaameed u gaar hadii aad u ogolaatay astaan hadaad calan u ogolaatay hees maxaa ka rabtaa hadii nin Soomaaliland joogo calan oo dhicin hadheeli waliga dhisna u dhaaf maxaa dhib ku jira sababtoo calan u ogolaatay astaan u ogolaatay marka waxyaabaha qaar kood waxa la rabaa inay noqdaan maaragtay inay aqligan ay la shaqeeyaan marka ani waxaan qabaa in maaragtay loo fasaxo inay hees yeelan karaan meeshan qodobka toddobaad waxa ku jira dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa lagu maxad gudbaan lamana qaybin karo weedhayn daqiiqo dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lama kala goyn karo laguna xad gudbi karo horay waxa loo soo yiri dawladda mas'uulka haddana waxa la yiri lama kala qaybin karo lama kala goyn karo laakiin waa la iibin karaa ku jirto marka waay loo dhihi waa halkan loogu dariyo waa lama iibin karo maxaa loo dhihi waa horay dawladda mas'uulka waa la soo yiri haddana waxa leeyahay maaragtay lagu maxad gudbi karo oo kaliya laakiin waxaan rabnaa in la yiraahdo dhibaato badan oo dhulka jirta arimo badan jirta dhulka lama iibin karo in meesha lagu qoro qodobka oo maaragtay ka hadlaayay afraad dadkan
maaragtay jinsiyadda ka hadlayay waa in dadka loo ogolaadaa oo aan qasab loo raalli ahaw gudoomiye gobolka banaadir caasimadiisa waa la cadeeyay laakiin waxa la yiri qodobka magaalo madaxda maqaamka magaalo madaxdu leedahay iyo matalaadeeda waxa lagu xeerinayaa cutubka shanaad ee dastuurka waxa lagu xeerinayaa maaha waxa lagu go'aaminayaa maaha maaragtay waxa lagu cadeynayaa maaha waxa leeyahay lagu xeerinayaa hadhow marka xagga la tagana waxa leeyahay waxa lagu xeerin doonaa maaragtay qodob baarlamaanka wuxuu ka soo saari doonaa xeer gaar marka waxaas maaragtay macquul ma ahe dadka meeshan jooga waxay leeyihiin masiirkooda matalaadooda marka meeshaas in lagu qoro waa aad iyo aad u mahadsantihiin